dhaawaca ACL mid ka mid ah dhaawacyada ugu halista badan ee cuuryaamiya ciyaartoyda nooc walba ay ahaadaanba haba ugu badnaadaan ciyaartoyda kubadda cagta. Muuqaalkan waxaan ku sheegi doonaa dhammaan wax walba oo ku saabsan ACL injury. Waa maxay ACL? ACL waa mid ka mid ah seedaha muhiimka ah ee caawiya xasilinta kala gooska jilibka. Waxay isku xirtaa lafta bowdada ee loo yaqaano femur ilaa iyo lafta lugta ee loo yaqaano tibia, waxayna caawisaa xakamaynta dhaqdhaqaaqa jilibka. ACL ama anterior cruciate ligament injury waa dhaawac caadiyan soo gaaro jilibka, khaasatan ciyaartoyda. Waxyaabaha sababa ACL injury waxaa ka mid ah quick change in direction, qofka in uu jihada uu ordayo hal mar uu bedelo, ama bootinta sidoo kale, iyo degdeg in uu istaago marka uu ordayo, qofka in uu hal mar istaago. Sidoo kale waxaa keeni karo dhaawac si toos ah jilibka u soo gaaro ama jug ku dhacdo. Waxaa kaloo keeni karo qofka marka uu boodo si aan habboonayn in uu dhulka ugu soo dego, tusaale ahaan jilibkiisa oo dhinac u qalooco ama oo kala wareegsan yahay in uu dhulka ku soo dego. Calaamadaha qofka ACL injury qabo lagu arko waxaa ka mid ah xanuun degdeg ah, barar, iyo xasilooni la'aan khaasatan dhanka jilibka ah. Sidoo kale in ay ku adkaatay in uu fidiyo ama uu laabo jilibkiisa. Daaweynta dhaawaca ACL. Dhaawaca ACL qofka uu soo gaaro waxaa loo sameeyaa gargaarka degdega ama first aid, taasoo ka dhigan in uu isaga xatay nafsad ahaantiisa samaysan karo. Gargaarkaas degdega wuxuu noqon karaa RICE ayaa loo soo gaabiyaa, R oo u taagan rest nasasho, I oo u taagan ice in uu qofka baraf meesha iskaga xiro, sidoo kale C compression in bandage lagu duubo ama faashad lagu xiro si bararka loo yareeyo. Sidoo kale E-da oo ah elevation, qofka lugtiisa ayuu kor u qaadayaa ama barkiin ayuu lugta hoos gelinayaa si uu kor ugu hayo. Intaas markii laga soo gudbo waxaa xigto baxnaanin ama rehabilitation. Inta badan dadka waxaa loo sameeyaa physiotherapy oo waxaa la baraa qaabkii uu dib jilibkiisii shaqadeedii normalka ugu soo laaban lahaa, oo jimicsi yar ayaa loo sameeyaa. Ugu dambeyn, qofkii mar haddii uu yahay ciyaaryahan, waxaa qasaba in qaliin lagu sameeyo. Qaliinkaas oo la sameynayo wuxuu keeni karaa in uu garoomada ka maqnaado ugu yaraan 6 bilood ilaa 1 sano, 12 bilood. Qaliinku wuxuu noqon karaa in la sameeyo qofkii markii dhaawac uu soo gaaro tendoniska ama seedihii dhaawacmay, in laga jaro qaybaha oo harharayga ah, kadib meeshii la jaray beddelkeeda in seed cusub loogu bedelo. Macnaha qayb ka mid ah jirkiisa ayaa seed laga soo jarayaa, seedkaasi ayaa lagu bedelayaa seedkii dhaawacmay. Baaritaano dhowaan la sameeyey ayaa waxay muujinayaan dhaawaca qofka ACL-ka soo gaaro ama ciyaartoydii uu soo gaaray oo qaliin lagu sameeyey in 3 meelood meel ka mid ah uu dhaawacaasi mar kale dib ugu soo laabto 2 sano gudahooda. Ciyaaryahanka waqti dheer markii ay ku qaadato soo kabashada dhaawaca waa mar kasta oo ay yaraato halista ah in uu dhaawacaas dib u soo laabto.